Madaxweynaha Mareykanka Biden ayaa bishii Agoosto 2 khudbad uu siiyey warbaahinta caalamka waxa uu ku dhawaaqay in la dilay hogaamiyihii Al-Qaacida Ayman al-Dawahiri. Waa kuma Ayman al-Dawahiri? Halka lagu dilay iyo sida loo dilay yaa Mareykanka siiyey xogta ku saabsan halka uu ku sugan yahay. Dhammaan su'aalahan waxaan isku dayi doonaa inaan uga jawaabno fiidiyogan. Asxaabta ku soo dhawaada channelka Abitay fadlan subscribe garee, share gareeya, like-da iyo comment-gana saara. Tobankii Juun 1951 degmada Macaadi ee Qaahira waxaa wiil ugu dhashay Dr. Mohamed al-Shaafici Rabiic al-Dawahiri oo ahaa dhaktar iyo borofesor wax ka dhiga kuliyadda Qasr al-Cayn ku takhasusay maqaarka. Wiilkaas ayaa loo bixiyey magaca Ayman oo caan ku noqday sida ay caadadu u tahay Carabta magaca awowgii ee al-Dawahiri. Waqtigaas waxa ay dadku aad u wada garanayeen in awowgiis uu ahaa Mohamed al-Ahmadi al-Dawahiri, sheekhaas oo ahaa madaxa Al-Azhar sanadihii 1929 ilaa 1935. Iyo sidoo kale dabcan magacyada aabihii iyo adeeradii oo ahaa dhakhaatiir caanka ahaa Qaahira. Awowgii dhanka hooyadii Cabdilwahaab Assam wuxuu ahaa safiirka Masar u fadhiya Sacuudiga, abwaan iyo qoraacaan ah, kana mid ahaa aas-aasayaashii waaweynaa ee Jaamacadda Boqor Sacuud ee dalka Sacuudiga ee 1957. Qoyska uu ka dhashay Ayman ayaa ahaa mid caan ah oo sumcad wanaagsan ku leh Masar. Sanadkii 1966 Jamaal Abdinaasir ayaa daldalay Sayid Qutb oo ahaa aasaasihii Ikhwaan Muslimiinka iyo qaar ka mid ah hogaamiyaasha Ikhwaanka, waxaana dhacay mudaharaadyo waaweyn oo Masar oo dhan qabsaday. Ayman al-Dawahiri wuxuu ka mid ahaa dadkii ka qayb qaatay. Ayman ma ahayn xubin ka tirsan Ikhwaanka, laakiin al-Dawahiri caradiisu waxay ahayd caradii uu ka qaaday maamulkii arxanka darnaa keligii taliska ahaa oo ku dilay xaqdarro wadaad lah miisaan sida Sayid Qutb oo qoray kutub tafsiir iyo culuum diineed. Ayman al-Dawahiri oo jiray 15 sano waxa uu galay xabsiga muddo 1 sano ah. 2 sano kadib markii laga sii daayay xabsiga wuxuu galay kuliyadda caafimaadka ee Jaamacadda Qaahira. Wuxuuna kaga qalin jebiyey dhakhtar qaliin oo ku takhasusay indhaha markay taariikhdu ahayd 1978. Kadib dilkii madaxweynihii Masar ee Anwar al-Saadaat 1981 Oktoobar, sirdoonka Masar ayaa xog ku ogaaday in Jamaacad al-Jihaad ay ahaayeen kooxdii dilka ka dambeysay iyo in Aymanna uu ahaa mid ka mid ah dadka ugu sarreeya kooxdaas oo uu intii uu jaamacadda dhiganayay uu si qarsoodi ah uga mid ahaa dadkii abuuray Jamaacad al-Jihaad. Balse markii baaritaan dhab ah oo faahfaahsan la sameeyey ayaa caddaatay in al-Dawahiri uusan ka qayb qaadan ama xitaa uusan aqoon u lahayn dilka Saadaat. Laakiinse sirdoonka waxay ku sii hayeen xabsiga ilaa 1985 inkasta oo maxkamaddu wax dembi ah ku weyday. Muddadaas wuxuu la kulmay tacadiyo aad u ba'an iyo xaalad nololeed aad u liidata oo ka jirtay xabsiga, taas oo keentay in uu lumiyo rajadii uu ka qabay Masar. Isla markii uu ka soo baxay xabsiga waxa uu u dhoofay Sacuudiga, wuxuuna ka soo shaqeeyey halkaas inta uusan tegin Afghanistan si uu ula dagaalamo Midowgii Soofeetka ku soo duushay Afghanistan. Markii al-Dawahiri oo yimid Afghanistan waxa uu la kulmay qaar ka mid ah asxaabtiisii hore ee ka mid ah Jamaacad al-Jihaad, waxayna go'aansadeen inay soo nooleeyaan kooxdoodii hore ee Jamaacad al-Jihaad. Isla waqtiyadaas wuxuu la kulmay Usaama bin Laden oo leh koox la yiraahdo
Al-Qaacida wayna go'aansadeen in ay isku biiraan ay ugu yeeraan kooxdooda Qaacidad al-Jihaad, taas oo ka dhigan isku darka labada magac ee al-Jihaad ee Ayman iyo tan Usaama ee Al-Qaacida oo laga dhigay hal magac Qaacidad al-Jihaad. Bilowgii waxay la dagaalameen Sofiyeetka, laakiin markay gaaray 1998 ciidankii Sofiyeetka waa la jebiyey oo way ka baxeen Afghanistan. Kadib waxay u soo jeesteen cidda ay u arkaan inuu yahay cadowga koowaad ee ummadda muslimiinta kaas oo ah Maraykanka. Al-Dawaahiri waxa uu ahaa maskaxda ka dambaysay weeraro badan oo ka dhan ah Maraykanka sida ay aaminsan tahay sirdoonka waddankaas, sida qaraxyadii daaraha Qobar ee 1996 ee Sacuudiga oo lagu dilay 19 Maraykan ah, iyo weerartii safaaradda Maraykanka ee Kenya iyo Tansaaniya ee 1998 oo lagu dilay 226 iyo qaraxyada Sebtembar 2001 ee New York oo lagu dilay in ka badan 3,000 oo Maraykan ah. Laga bilaabo weerarkii koowaad, Al-Dawaahiri wuxuu noqday bartilmaameedka labaad ee ugu weyn oo inta badan hay-adaha amniga reer galbeedka khaasatan Maraykanka ay doonayaan. Lacag badana waa loo qoondeeyey ciddii keenta xog horseeda qabashadiisa ama dilkiisa. Baahida loo qabo in isaga la qabto ama la dilo ayaa la xoojiyey tan iyo markii la dilay Bin Laden bishii 2 May 2011. Su'aasha meesha taala ayaa ah maxaa hadda keenay dilka Al-Dawaahiri oo sabab ma jirtaa? Si aan uga jawaabno su'aashaas waxaan u baahanahay inaan dib ugu laabano heshiiskii u dhexeeyey Maraykanka iyo Taalibaan. Kadib wadaxaajoodyo u dhexeeya Maraykanka iyo Taalibaan oo ka bilaabmay Dooxa Qatar 2018, Taalibaan iyo Maraykanka waxay gaareen heshiis markay taariikhdu ahayd 29 Febraayo 2020. Heshiiska waxaa ka mid ahaa in Taalibaan aysan sinaba u taageerin ama u caawin Al-Qaacida, qodobkaasoo uu Taalibaan ku aqbaleen, iyo in ciidamada Maraykanka ay ka baxaan Afghanistan. Taalibaan inkastay kula heshiiyeen Maraykanka in aysan taageerin ama caawin Al-Qaacida, laakiin Taalibaan maysan ku dhaqmaynin qodobkaas oo si sirah bay u taageerayeen Al-Qaacida, balse Maraykanku wuu ogaa laakiin waxa uu iska dhigay in aanu waxba ka ogayn arrintaas. Ujeeddadu Maraykanka ee qarsooni waxay ahayd in Al-Qaacida soo degaan magaalooyinka Afghanistan si ay ugu fududaato ugaarsigooda. Sababtoo ah waxay magaalo walba ka dhisteen basaasiin badan 20kii sano ee lasoo dhaafay kadib markii ay Afghanistan qabsadeen. Ciidamada Maraykanka ayaa soo gabagabeeyey ka bixitaankoodii Afghanistan 30kii Agosto 2022. Al-Dawaahiri waxa uu ku dhuumaalaysan jiray miyiga iyo buuraha, balse dhowrkii sano ee lasoo dhaafay ayuu u soo guuray magaalo madaxda Kaabuul oo degay guri ka mid ah guryaha uu leeyahay wasiirka arrimaha gudaha ee Taalibaan Siraajudiin Xaqaani kadib markii ay Taalibaan la wareegeen Afghanistan. Taasina waa tii ay sugayeen Maraykanka oo raadis ugu jiray Xaqaani qudhiis. Waxay ahayd qalad weyn oo uu galay Al-Dawaahiri markii uu degay guri uu leeyahay Xaqaani, sababtoo ah Maraykanku waxa uu doonayay in uu dilo Xaqaani. Taasina ma aha wax qarsoon, waxay mar horeba duldigeen lacag badan madaxa Xaqaani. Xaqaani guryihiisa oo dhan waxay ahaayeen bartilmaameedka basaasiinta Maraykanka. Sababtaas awgeed may adkeen inay helaan Al-Dawaahiri. Sanadkii hore oo dhan Al-Dawaahiri ayaa la daba socday oo wax kasta oo isaga ama kalkaaliyaashiisa ay sameeyeenna waa la qoraayay. Cidda ay la kulmeen ama la hadleen. Waxaas oo dhan waxay faa'iido u yeelan doonaan Maraykanka inay fahmaan Al-Qaacida iyo in la helo bartilmaameedka xiga.
Subaxnimadii hore ee 31 Luulyo 2022 ayaa lagu dilay Ayman al-Dawahiri weerar ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka. Asxaabta, haddii aad ka heshay channelkan fadlan ha ilaawin inaad subscribe gareyso, like saarto iyo commentina ka dhiibato.